kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorkoon oo ku daawan doontaan galka wararka maanta waxaa kamid ah dowladda Kenya oo xirtay xuduudda Soomaaliya kuna dhawaaqday inay joojisay xiriirkii ganacsi Sheekh Mukhtaar Roobo oo la dhigay isbitaalka Digfaar xafiiska Sheekh Shaakir oo iska fogeeyay tagoor ka dhan ah dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Muudey oo si ka duwan sidii hore loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho go'aano culus oo ka soo baxay shirka amniga caasimadda qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal galka wararka haddii aad ku cusub tahay daawada waxaad saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqa iyo xogtii ugu dambeysay Soomaaliya daawadayaal qodobadaas oo faahfaahsan dib ayaad ka daawan doontaan laakiin war degdeg oo hadda naga soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa la sheegayaa in xiisad colaadeed ay ka soo cusboonaatay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan taasi oo u dhaxaysa ciidamo ka tirsan booliiska maamulka Hirshabeelle iyo ciidamo taabacsan gudoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolkaasi Yusuf Dabageed dagaalka ayaa haatan ka socda bar control oo ku taala halka loo yaqaan Kalabeer waxaana ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan gaashaanle dhexe Maxamed Muxuu ayaa la sheegay inuu ku dhintay dagaalka sidoo kalena waxa la sheegay inuu dhaawac soo gaaray taliyihii ku xigeenka ciidanka booliiska Beledweyne iyo askar kale oo ka tirsan booliiska Kalabeer oo dhaca duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa haatan laga maqlayaa dagaal culus oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan wuxuu dagaalkaasi u dhaxeeya ciidamada cadwa gudoomiyaha xilka laga qaaday Yusuf Dabageed iyo ciidamo ka tirsan booliiska maamulka Hirshabeelle waxaana galabta kacsan xaaladda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo dadka ku nool ay ka cabsi qabaan in lagu dul dagaalamo wixii warar oo ku soo kordha iyo dagaalkaasi ka socda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaad ku daawan doontaan wararkeena barnaamijyada soo socda daawadayaal balse aan ku laabano wararkeeni hore dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inay xirtay xuduudii Soomaaliya isla markaana ay joojisay gabi ahaanba ganacsiga kaga imaan jiray Soomaaliya goobta xuduudda sida gaarka loo xiray ayaa ah dhanka Lamu oo ah mid ka mid ah 4 marin xuduudeed ee Kenya kala dhaxaysa Soomaaliya iyadoo saddexda kale ay yihiin Mandera, Wajir iyo Garissa madaxa booliiska Lamu ayaa sheegay in hadda iyo wixii ka dambeeyay xuduudda ay u furnaan doonto kaliya saraakiisha amniga dadka ku nool Lamu ayaa sidoo kale laga mamnuucay inay ganacsi la yeeshaan ama ay la sameeyaan Soomaaliya sidoo kale madaxa booliiska Lamu ayaa sheegay in cid kasta ay sidaasi sameysay ay lumid doonto shaatiyada ganacsi isla markaana xabsiga loo taxaabi doono ciidamada ammaanka Kenya ayaa sheegay inay qabteen 10 jabaan oo sokor sharci darro oo ka timid Soomaaliya iyo xirmooyin caano geela ayaa lagu amray inaysan iibin karin wax badeeca oo ka timid Soomaaliya isla markaana ay badeecadaha Kenya ay ka iibin karin Soomaalida xadka degan xiritaanka xuduudda Kenya ayaa ah cutubkii ugu dambeeyay murunka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada dal ee salka ku haya badda Soomaaliya ay Kenya sheegatay 24 saac la soo dhaafay waxa soo baxay warar sheegaya in maamulka Galmudug gaar ahaan caasimadda Dhuusamareeb ay hay'adaha amniga si gaar ah ay ugu yeereen dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyagoo ka dalbaday inay ama xoog lagu tarxiili doono arintaasi ayaa waxa iminka ka jawaabay maamulka Galmudug iyo xafiiska madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir waxayna ku tilmaameen dacaayad waxba kama jiraan agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxa xukuumadda Galmudug Ibrahim Jeekay oo wareysi siiyay saxaafadda ayaa sheegay way jirtaa in shalay Dhuusamareeb loogu wacay dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed waxa lagala hadlay sugidda amniga kaalinta ay ku leeyihiin iyo inay ku soo wargeliyaan laamaha ammaanka qofkii ku soo dega iyo qofkii ay damiin ka noqonayaan ama kan kale magaalada iska jooga ee ka tirsan ayaga dhanka kale dadka loo yeeray oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in lagu amray in ay ka guuraan deegaanada maamulka Galmudug isla markaana ay u guuraan deegaanada ay ka soo jeedaan ganacsatada loo yeeray qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay inuu jiro hadalka ka soo baxay maamulka Galmudug isla markaana kulankii dhaxmaray madaxda maamulka Galmudug iyo ganacsatada ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed lagu amray inay ka guuraan deegaanadaasi Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa la dhigay isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho 15 Ramadaan kuna bagneed 21 bishii la soo dhaafay ee May kadib markii uu xanuunsaday sida ay ogaatay caasimadda online sida ay la wareediyo lagu kalsoon yahay u sheegeen caasimadda online Abu Mansuur ayaa ka xanuunsaday kaliyaha waxaana isbitaalka ku jiray muddo 3 maalmood waxaana la dhigay qayb gaar oo loo diiday inta badan shaqaalaha iyo guud ahaanba dadweynaha waxaana arintaasi gacanta ku hayay dhakhtarka ugu sareeya Digfaar kaas oo u dhashay dalka Turkiga
Sheekh Mukhtaar Robo oo hadda xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagtay ayaa la sheegay in xanuunkan kaliya uu hore u qabay isla markaana uu mararka qaar ay ku soo kacdo markuu ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sidaan oo kale waxa la dhigay waxaana sababay ugu soo biiray dawladda la sheegay inay qayb ka ahayd arintan caafimaad. dhaqaatiirta caafimaad ee Abu Mansuur ayaa sheegay inuu wanaagsan yahay waxayna u qoreen daawo iyo dhaqaatiir gaar ah oo la sheegay inay sii doonaan daawadaasi sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan isbitaalka Digfeer. sidoo kale arintan waxaa caasimadda Highland u xaqiijiyay nabadoonii saraakiil kale oo ka agdhow Abu Mansuur ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka dawladda Soomaaliya oo arintan ku saabsan. sargaal ka tirsan hay'adda NISA oo aan weydiinay ayaa sheegay inaysan xog badan ka hayn arinta Abu Mansuur isla markaana aysan ogaan karin qof kasta balse ay gacanta ku hayaan mas'uuliyiin sare oo kaliya. gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib safar uu ku aaday dalka Turkiga. intuu ku maqnaa dalka Turkiga waxaa soo shacbaxay mooshin ka dhan ah oo ay wadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya walow mooshinkaasi uusan noqon mid sii socda. xubnaha gudoomiye Muudey ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa ku jira wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo xildhibaano si dhow looga xaglinayo inuu xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo madaxtooyada Soomaaliya. soo dhaweynta noocan ayaa u muuqata mid dowlatus ahaan loo sameeyay gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka ayaa weegii hore loo sameyn jirin soo dhaweyn mana la soo bandhigi jirin imaashahooda. shirka looga hadlayay ammaanka iyo howlgallada ka socda magaalada Muqdisho ayaa xalay lagu qabtay xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. shirka waxaa ka qayb galay saraakiisha qaabilsan dhanka ammaanka iyadoona diiradda lagu saarayay amniga qiimeyn guud ahaan lagu sameeyay sida ay u socdaan howlgallada caasimadda. gudoomiye Yariisow ayaa sheegay in muddo dheer ay wadeen dabagal xoogan isla markaana loo baahan yahay in la sameeyo isbeddel ballaaran. shirka amniga caasimadda ayaan ku qiimeynay xaaladda guud kadib kormeer iyo dabagal joogta oo aan wadnay muddo isla markaana go'aaminay dib u eegis lagu sameeyo qorshaha sugidda amniga caasimadda ayuu yiri injineer Yariisow. sidoo kale wuxuu ka dalbaday shacabka in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka. maamulka gobolka iyo saraakiisha ammaanka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay joogteeyay kulamada looga hadlayo amniga iyagoona soo saaray go'aano wax looga qabanayo dhibaatooyinka weli ka jira magaalada Muqdisho. ha yeeshee waxaa weli isbeddel dhab ah lagu sameyn qorshaha sugidda amniga oo dhibaato ay ku qabaan waxaana haatan kala xiran degmooyinka gobolka Banaadir oo uu ka jiro waxa loo yaqaan kala wareeg oo ah in la isku gudbi karin. akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon dowladda Jabuuti oo war ka soo saartay maraakiib dagaal oo Iiraan leedahay. dowladda Jabuuti ayaa beenisay war ka soo baxay oo sheegaya in ay biyaheeda u ogolaatay maraakiib dagaal oo ay leedahay Iiraan. safiirka Jabuuti ee dalka Sacuudiga ayaa si kulul u beeniyay in maraakiib dagaal oo Iiraan leedahay ay ku sugan yihiin xuduud badeedka dalkiisa wuxuuna ku adkaystay in Jabuuti ay weli xiriirkii ay u jartay dowladda Iiraan isla markaana uu yahay sidiisii. ma jirto maraakiib dagaal oo Iiraan ay leedahay oo soo galay biyaha Jabuuti ama dekadaheeda. safiirka Jabuuti u fadhiya Saudi Arabia bayaan uu soo saaray wuxuu intaasina ku daray in wax xiriir uusan ka dhaxayn labada dal. bishii Janaayo 2016 Jabuuti ayaa la safatay Sacuudiga xiriirkana u jartay Iiraan kadib markii dibadbaxyaal ay galeen safaaradda Sacuudiga ee Tehran taasi oo ka dambeysay markii Sacuudiga ay dileen wadaaddo Shiico ah oo caan ahaa. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka intaan warkan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.